ugu yaraan 832 qof ayaa ku dhimatay dhulgariirka iyo duufaanta tsunami ee sida weyn ugu dhifatay jasiiradda Sulawesi ee dalkaasi Indonesia sida ay sheegtay laanta ka hortagga masiibooyinka ee dalkaasi Indonesia waxay sidoo kale sheegtay in dadka ay saameyntu ku reebeen dhulgariirka ay ka badan yihiin tiradii hore loo sheegay dad badan ayaa waxaa la rumaysan yahay inay ku hoos jiraan burburka dhismayaasha kadib markii uu halkaasi dhulgariirka ku dhiftay sida uu sheegay afhayeenka laanta masiibooyinka ninka lagu magacaabo Sutobo Purwo Nugroho shaqaalaha gurmadka degdega ah ayaa gacmaha ku qodaya burburka si ay dadka uga soo saaraan dhismayaasha burburay ee magaalada Palu waxa uu sidoo kale walaac ka taagan yahay magaalada lagu magacaabo Donggala oo aan la ogeyn khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay dhulgariirka iyo waliba duufaantaasi tsunami hay-adda Lanqeyrta Cas waxa ay ku qiyaastay 1.6 milyan oo qof inay waxyeello ka soo gaartay masiibadan madaxweyne ku-xigeenka waddankaasi Indonesia ninka lagu magacaabo Yusuf Kalla waxa uu sheegay in tirada dadka ku dhintay dhulgariirka iyo duufaanta ay gaari karto kumanaan qof madaxweyne Joko Widodo waxa uu isagu joogaa magaalada Palu si uu soo eego xaaladda dhabta ah ee halkaasi ka taagan magaaladan ayaa ka mid ah meelaha ugu waaweyn ee ay saameynta ku reebtay masiibadan madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa booqashada rasmiga ah ee uu ku marayay dalka Jarmalka ku soo afmeeray xadhigga jaridda mid ka mid ah masaajidda ugu waaweyn qaaradda Yurub oo laga dhisay dalkaasi Jarmalka waxaana madaxweyne Erdogan uu sheegay in masaajidkan laga dhisay magaalada Cologne uu astaan u yahay nabadda isaga oo u mahad celiyay dawladda waddankaasi Jarmalka sida ay u ogolaatay inuu dhismaha masaajidka aanu istaagin marnaba iyadoo ay socdeen mudaharaado looga soo horjeedo dhismaha masaajidka ciidamada booliiska oo aad u tiro badan ayaa laga howlgeliyay xilli uu booqanayay magaalada Cologne magaaladaas oo ah magaalo ay ku nool yihiin dad aad u tiro badan oo Turkiga u dhashay booqashada 3 maalmood ee uu ku joogay waddankaasi Jarmalka oo ahayd mid uu muran badan ka dhashay wuxuu Mr Erdogan khudbadiisa uu si kulul ugu cambaareeyay waddanka Jarmalka oo uu martida u ahaa dalka Jarmalka waxa ku nool qurbo joog aad u xoogan oo ka badan 3 milyan oo qof kuwaas oo ka soo jeeda waddanka Turkiga masaajidka weyn ee laga dhisay magaalada Cologne waxa dhisay koox diinta Islaamka u dhaqdhaqaaqda oo xiriir dhow la leh dawladda waddanka Turkiga ujeedada booqashada rasmiga ah ee madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu ku maray waddanka Jarmalka ayaa waxa lagu sheegay in ay ahayd in xal loo helo xiriirka labada dal oo bilihii u dambeeyay si xumaanayay wargeyska lagu magacaabo Bill oo kamid ah kuwa ugu caansan waddanka Jarmalka ayaa waxa uu bogiisa hore ku soo daabacay khudbadda madaxweyne Erdogan inay ahayd mid uu ku muujinayay nacaybka uu qabo waddanka Jarmalka waa sida wargeyskaasi uu qoray Saeed Ahmed Tamreise wararka telefishanka caalamiga ah ee Star